waxaan xasuustaa subaxii markaan guriga ka baxayno baaskiil baan wadan jirna marka saddex carruurta isku nuuga ahaayeen marka midna hore ba igu xirnaad gadaal mid baa igu xirnaad mid kalena maxaa la yidhahdaa way markaas 2 sano jirtaa 3 sano astaghfirullah ayay jirtay iyadana baaskiil ay wadatay marka ka waran jidkaas dheer aad maraysid oo maxaa la yidhahdaa baaskiilka aad ku socotid oo iyagaa geenaysa marka ayaga aad geysid ka bacdi ayaa adigana iskuulka tegaysaa badanaa saaxiibada asxaabteeda waxay ku kaftamaan waxa weeyaan shan caruur iyo 5 jaamacadood baan isku haystaa marka dumarka Soomaalida laba meel baa waliba macnaha qurbaha jooga labada dhinac baa laga cunsuriyeenaya kuwaas ay ku arkayaan qof Soomaali ah muslim ah oo maxaa la yiraahdaa daboolan oo xijaaban inaad macnaha kuma ogola أنا وحن قبل أقول رئيس أو حجابا أو جامعة كبلوذي محلها عافماتك جامعة لوند سنة كأوهر مركان دمية سنة كلا بعد وحيدها مسمين كرتيت براكتيكو معناها internship مسمين كرتيت على حجابك يا مركز هو سنة كلا بعد يكون بيهت ومحا dhacay ma xijaabka waxa weeyaan markaad shaqada ka soo baxayso waa dharka dhan iska dhigtid dharka bedelanaysa marka xijaabka ma bedelan kartid anaga xijaab ma hayno uniform keena kuma jiro marka heer waxaan gaaray aan masawiradii macnaha website kooda ku jira naagaha cidiyaha dhaadheer oo maxaa la yiraahdaa ilaa cidiyaha dhaadheer xataa lama ogolo cidiyaha ranji ina marsatay macnaha hygiene ayay ku jirtaa macnaha nadaafada kuwaas oo dhan ayaan soo saaray aan dhahay iyo naagaha macnaha markay shaqada ku jiraan ay timaha xoqanayaan iyagii oo timaha saas u xoqanayo oo cidiya ku yaalaan iyo aniga timaha ii daboolan kee nadaafad daraq macnaha soo kordhinayo marka adii isbitaalkii intay dib iskugu noqdeen iyo jaamacaddii oo shir weyn la galay ayaa la ii ogolaaday burburkii iyo dagaaladii iyo wixii ka dambeeyo waxaa laga hadlaa oo la hadal hayaa macnaha dumarka kaalinta ay ka qaateen wadanka in macnaha dumarka Soomaaliyeed lagu baxsaday Soomaaliya maanta macnaha heerka ay gaartay laakiin marka aragtid waxaad moodaysaa iyadoo saas ay u og yihiin ayaa haddana waxaa lagu dhahayaa dumarkan macnaha nama hayi karaan marka waxa weeyaan waa mentality tan ugu weyn caqabada ugu weyn mentality weeyaan marka waxaan isleeyahay jiil cusub baa soo socda runtii dhalinyarada hadday la qabsadaan ilaan meeshan lagama hadlayo dumarka inay macnaha hoggaan iyaga ragga ay hoggaamiyaan inay hoggaanka ku jiraan dumar iyo ragba oo loo baahan yahay macnaha gabdhaha inay iskaashadaan khasab inay iskaashadaan keligood meel kuma gaarayaan waxa kale wax alla waxay doonaan maanta ay noqon karaan waxay doonaan ay sameyn karaan ma aha in diinta laga tago in maxaa la yiraahdaa dhaqanka laga tago guur in laga cararo ma aha kulli adduun iyo aakhiraba wala isku wadi karaa maanta maxaa la yiraahdaa wax alla waxay doonaan way qaban karaan hogaamiyayaal way noqon karaan laakiin hadii ragga walaalahooda inay soo dhaweystaan aqli macnaha ayaa loo baahan yahay